daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro gombeelka furdaa wararkii ugu dambeeyay xildhibaan cabdixakiin macalin oo beeniyeen ciidamada Itoobiya la geeyay halkaas iyo xildhibaan mahad salaad oo isku beel ay wada yihiin kana soo jeedaan galmudug oo jawaab culus siiyay isla markaasina sheegay oo kusoo hadal qaatay riwaayad in maalin mar hore oo fiirsay isla markaasina ahayd tuug ma arkin ayaa arrintaani waxay keentay khilaaf xooggan baraha bulshada la isdhaafsada hase yeeshee ciidamada Itoobiya oo si rasmi ah loo xaqiijiyay in ay halkaasi degeen maadaama ay kasoo darayso siyaasiyiinta kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo oo ku sugan isla markaana ku sugan dalka Itoobiya ayaa lagu eedeynayaa inuu jaajuus u yahay ama isla markaasina oo dhibaato xooggan ku haya shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay doorasho ka jirtana uu adeegsanayo ciidamada Itoobiya hase yeeshee arrintaani oo soo daraysa ayaa marka ka dambaysa waxaa soo baxaya siyaasiga dhulka la jarayo madaxweyne farmaajo hase yeeshee labada xildhibaan oo kasoo wada jeeda galmudug ayaa iminka isku dhigan laba xildhibaan oo kasoo kala jeedo oo ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya kana soo jeeda galmudug ayaa iska hor jeediyay ama iska hor imaaday u sameeyay baraha bulshada ayagoo ka hadlay dhibaatada ciidamada Itoobiya ay ku hayaan ama la geeyay halkaasi Itoobiya la geeyay magaalada Dhuusamareeb iyadoo isku noqdeen baraha bulshada isla markaasina la isku dhadhaafsanayo jawaabaha xildhibaan cabdixakiin macalin axmed ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin wararka la sheegaya in Dhuusamareeb la geeyay ciidamo Itoobiyaan ah oo aanan amisom ka tirsanayn wuxuuna ku dooday in ciidamada Jabuuti iyo kuwa Itoobiya ay horay u joogeen magaalada Dhuusamareeb muddo aan ka yareen 3 bilood kana wada tirsanan yihiin ururka amisom ayuu yiri xildhibaankaas oo difaacaya imaashaha ciidamada Itoobiya Dhuusamareeb ayaa wuxuu yiri 3 bil ka hor ay meesha joogeen waa dhacda in ciidamada ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyada xagga kala bedelka ciidanka ama logistic ayuu yiri ama logistic waxaas nasiib darro ah in madasha xisbiyada qaran markii hore loo aas-aasay in wax lagu saxo oo hadalkana aan la hubsan ka soo baxo ayuu yiri hadallo noocaas oo kala ah xildhibaan cabdixakiin oo kamid ah dadka taageersan musharaxa madaxweynaha galmudug ee dowladda federaalka Soomaaliya ay wadato hase yeeshee xildhibaankaas ayaa taageersaneen odawaana wuxuu ku xisbi yahay xisbiga madasha qaran ee hogaamiyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed haddaba sidaas ayaa la iskaga soo horjeedaa dhinaca kale xildhibaan mahad salaad ayaa ku sheegay in ciidamada Itoobiya ay dharaar cad soo galeen magaalada Dhuusamareeb oo aysan ahayn in la inkiro haddii aan la sheegin karin oo yiri ama aan la dhihi karin waa ay joogaan isla markaasina ay lamid tahay inay cabsanayaan xildhibaan mahad salaad oo bartiisa Facebook ku soo qoray hadallo la yaab leh isla markaasina adeegsanayo meelo kale iyo warbaahinno kale ayaa waxa la leeyahay maanta waxa noo shidan oo yiri riwaayadii magaca laga bedelay ciidamadii Itoobiyaan ah oo ma arkin dheh ayaa meesha ka socota wari dadka indha la'aan ma ahna oo yiri ciidamada dharaar cad ayay magaalada soo galeen ee habeen saqdhaxa ah guuro kuma soo galin maxaa loo inkiraya ayuu yiri hadiisan wax xun ay yihiin oo yiri oo aanan la sheegi karin oo yiri maxaa marka hore loo dalbaday ayuu yiri xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo u jawaabay cabdixakiin macalin xildhibaan mahad salaad ayaa kamid ah xildhibaanada sida weyn u taageersan musharaxa xilka madaxweynaha ee galmudug Cabdiraxmaan Odowa hase yeeshee iska soo horjeedaan waxaa la leeyahay arrin dad qaarkood ayaa waxay ku saleynayaan labadan xildhibaan oo iminka isku haysta baraha bulshada inay kala taageersan yihiin laba musharax oo labadooda la leeyahay waa ay kasoo kala jeedaan isla markaasina galmudug hase yeeshee arrintan ayaa la ogeyn meesha ay kusoo biyishubin doonto maadaama xiisad aad usii dheer tahay xilli oo madaxweyne farmaajo ku sugan yahay dalkaasi Itoobiya isla markaasina la leeyahay waxa uu kaalmo ciidan weydiisanaya mar kale Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalkaasi hase yeeshee xaaladda washwash ayay maraysaa wararka ayaa isku soo daba dhacayo siyaasiyiin iyo aqoon-yahano dibadaha ku sugan ayaa soo garbaashayo madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegayo shalay markuu isa sharaxayo wuxuu lahaa ciidamada gumeystayaasha Itoobiyaanka waan ka saarayaa dalka isla markaasina gabi ahaanba ciidamada qaranka ayaan ku wareejinayaa hase yeeshee iminka oo doorashadiisa ay wax yar uga harsan tahay ayuu u adeegsanayaa gobol kasta inuu ciidamada geeyo laga soo bilaabo Jowhar haddii maanta laga diido amarkiisa ciidamo Itoobiyaan ayuu geynayaa haddii xamar amarkiisa aysan ka soconaynin ciidamo Itoobiyaan ayuu keenayaa hase yeeshee farmaajo oo isku dhiibay Itoobiya ayaa lagu soo gabagay warbixinada qaar si yeeshee isha ayaan ku haynaynaa fadlan nala joog qodobada kala xiga si daawo oo subscribe saaro gombeelka furdaa wararkii ugu dambeeyay calansida odawa war qoraal ah soo saaray ayaa si gaar ah ugu dhaliyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo isagoo sheegay in ciidamada dawladdiisa ay geysay magaaladaasi aysan cabsi gelin doonin sida uu hadalku u dhigay hase yeeshee haddii arrintaasi laga sii badbidana ay isdifaaci doonaan reer galmudug asoo arrintaasi ula jeedo reer galmudug cabsan maayaan cid kasta u soo adeegsatid laakiin isdaba qaba madaxweynow sidoo kale wuxuu tilmaamay in ujeedada ciidamada Itoobiya loo geynayo Dhuusamareeb ay tahay in laga boobo doorashada dhawaan ka dhacaysa gudaha degmadaas isla markaasna la leeyahay
qofka ay wataan filla Soomaaliya ayaa halkaasi la soo siri doonaa. haddaba war saxaafadeedka uu soo saaray ayaa sida tan u qornay. madaxweyne Farmaajo iyo ciidamada Itoobiya. madaxweynaha markii uu doorashada raadinayay waxa ugu weyn ee uu ku soo gabagabeeyay waxa ay ahayd inuu wax ka qaban doono faragelinta markasta taagan ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya asigoona sheegay in Itoobiya ay tahay gumeystaha Soomaaliya isla markaasina uu gabi ahaanba ka cirib tiri doono hase yeeshee maysan dhicin. madaxweynaha mabadaahin ee markii uu xilka qaaday waxa uu si xishood lahayn u bilaabay in dalka Soomaaliya uu ku cabiriyo ciidamada Itoobiya isla markaasina meel kasta u geeyo. dhacdooyinkaas soo socda ayaa markhaati u ah ayuu yiri. kow waxa uu 2017 isagoo aan xilka sanad haynin dalka Itoobiya u gacan geliyay ninkii lagu magacaabi jiray qalbi dhagax mujaahid qalbi dhagax isla markaana ONLF ku tilmaamay urur argagixis ah oo Soomaali badan aan ka mid ahaa iyo baarlamaanka Soomaaliya haddii aysan ka dhaadhicin lahayn ama ka dhiidhin lahayn waxay maanta naga wada ahaa lahayd ceeb qaran balse waxay ahayd hadda ku kooban tahay isaga iyo kooxdii la shaqaynaysay. asayeeshee qodobkaas ayuu ku sheegay inay qalbi dhagax ay dhiibeen isla markaasina ONLF ay ku tilmaameen inay argagixis tahay laakiin ummadda Soomaaliyeed ma la qabto asiga iyo kooxdii la shaqaynaysa ayuu yiri. waxa uu 2018 afduubay doorashadii Koonfur Galbeed laguna xasuuqay dad badan oo shacab oo reer Baydhabo ah oo dalbanaya xuquuqdooda dastuuriga ah sidaasi si la mid ah ayaa ciidamada Itoobiya ahi ay ugu soo afduubteen Mukhtaar Roobon oo ilaa iminka ku xiran magaalada Muqdisho isla markaasina aan la garanayna sababta uu xiran yahay iyo ujeedada ka dambeysay. laakiin ciidamada Itoobiya ayaa soo qafaashay ayuu yiri. waxa uu isku dayay inuu ku soo weeraro ama ciidamada ku soo weeraro Kismaayo ciidamada Itoobiya si ay ugu soo afduubaan madaxweyne Axmed Madoobe laakiin Madoobe oo ka kibir badan isla markaasina ka hortagay oo kooxda Farmaajo ayaa xiray airportka Kismaayo kuna jaray baabuurka jidka ku jaray diyaaraduna ka degto oo diiday isla markaasina sidaas ay ciidamadii uu madaxweynuhu soo kireystay ee ku fashilmeen. waxaana lambarka afraad wuxuu yiri waxa hadda ka socdo deegaanada Gedo afduub iyo cagajugleyn ay u geysanayaan ciidamada Itoobiya cid kasta oo madaxweynaha ka ra'yi duwan oo joogta deegaanadaasi ama taageersan madaxweyne Madoobe. lambar 5 waxa ugu dambeeyay ayuu yiri kuwa uu hadda ku sii daabulayo Dhuusamareeb sidii ugu baabi'iyo dadka doorashadaas isla markaasina u boobo galmudug una soo afduubto musharaxiinta ka soo horjeedo aragtidiisa ileen ma aaminsana in si xor ah oo xalaal ah looga adkaan karo isla markaasina wuxuu doonayaa inuu dhammaan soo wada afduubto oo arintaasi oo mid asiga u wato oo meeshaasi suro. waxa uu sidoo kale xildhibaankan ama musharaxan galmudug sheegaya haddaba waxaan xasuusinayaa madaxweynaha filimkaas horay ayaan u soo galnay ayuu yiri. waxa uuna ku dhammaaday ciidamada Itoobiya oo dhammaan 50 kun oo dhaawac iyo dhimasho sita oo ka qulqulaya dalkeena ayaa hore loo soo arkay ayuu yiri. mudane madaxweyne waxa YouTube-yada ka buuxa warkaagii shalay dhaqankaaga maanta cid walba waa arkaysa waxa aan kugula talin lahaa inaad isdaba qabato nama cabsi gelinayso oo yiri ciidamada aad Dhuusamareeb ku sii daabulayso dadka reer Galmudugna ma aha kuwa baqdin gelin kara waxa loogu yeeray halkaasi ama ciidamada imaanayo. asayeeshee arrintani oo aad cirkas ku sii shareertay ayaa waxa leeyahay siyaasi kasta oo ka soo hadlaya isla markaasina xaaladooda waxa la leeyahay waa mid aad u sii sareyso maadaama ay musharaxiinta halkaas u tartamaya ay yihiin dad aad u fara badan. dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur xisbiga wadajir oo warmurtiyeed ka soo saaray ciidamada ku sii qulqulaya Galmudug isla markaasina sheegay inaan arrintan loo dulqaadan karin. xisbiga wadajir wuxuu si xoogan u cambaaraynaya faragelinta qaawan ee ciidamada Itoobiya ay ku hayaan dowlad goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland gaar ahaan gobolka Galgaduud iyo Gedo. shacabka Soomaaliyeed waxaan xusuusinayaa weli ka go'in faragelinta Itoobiya ay ku hayso dowladda Soomaaliya tan iyo markii 2016 ay ku soo qulquleen sababaha arrintaasi u soo ifbaxayeen ay u soo baxeen al-shabaab iyo Daesh ay ahayd ciidamada Itoobiya ku soo qulqulayo. waxaa si cad ciidankani Itoobiya ee aan ka tirsanayn AMISOM ee magaalada gaaray ee Dhuusamareeb in maamulka Farmaajo uu doonaya inuu ku afduubto doorashooyinka Galmudug sida aan sanadkii horeba ay ka dhacday wuxuu yiri meesha lagu magacaabo Baydhabo. asayeeshee arrintani oo ku tilmaamay inay tahay mid aan aminka la qaadan karin asayeeshee aad ayuu u dhaliilay. dhinaca kale haddii aan qodobkaasi halkaas ugu tagno liiska odayaasha la soo xulay baarlamaanka Galmudug ayaa iminka sii soconaya xilli xiisadaasi ay taagan tahay isla markaasina ciidamada Itoobiya ay ku sii qulqulayaan deegaanadaasi Galmudug. doorashadii ayaa wasiirka soo saaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa liiska odayaasha soo xulay ee baarlamaanka Galmudug ku wareejiyay guddiga farsamada ee maamulkaasi
liiska oo ka kooban 44 oday oo dhammaan ayaa waxaa lagu wadaa in isla maanta la xareeyo si ay ugu guda galaan saxiixooda baarlamaanka ayaa la yidhi guddiga ayaa sheegay in odayaasha looga baahan yahay inay dardar geliyaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday si aysan dib ugu dhicin doorashada baarlamaanka ee galmudug ayaa la yidhi bisha December ee soo socota bari ka bilaabanaysa ayaa qorshuhu yahay inay dhacdo doorashooyinka galmudug oo isugu jira midda madaxweynaha iyo baarlamaanka ee maamulkaasi arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo weli ay taagan tahay xiisada u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya ahlu sunna wal jameeca oo dhaqaaqyo siyaasadeed ka wada magaalada dhuusamareed ee gobolkaasi galgudud hase yeeshee ma ahan maanta oo kale ayay ahayd xaaladda iminka cakiran ay ka taagan ciidamada Itoobiya kusoo qilqulayaan maadaama ay kasoo hadlayaan siyaasiyiinta dhankaas kasoo wada jeedo wasiirka arrimaha gudaha oo maantana soo saaray odayaashii 44 qofood ah ayaa waxa leeyahay xaaladdu waa aad ay u cakiran tahay ciidamada Itoobiya ayaa iminka waxa leeyahay waxay degeen meel u dhow garoonka dhuusamareeb isla markaasina la doonayo inay marka doorashada dhacaysa halkaas isku gadaamudaan sida baydhabo isla markaasina madaxweyne farmaajo qofka uu wato halkaas uu soo taago sayyeeshee ma aha mid sii socod doonta oo madaxweynayaashii hore ayaa sidoo kale shalay khayradaan soo yeeriyay isla markaasina sheegay ciidamo Soomaaliyeed ayaa hore u jooga dhuusamareeb ciidamo Djibouti oo amisom ayaa hore u jooga sababta u imaadeen ciidamada Itoobiyaanka ah dhuusamareeb waa la garagaraa oo waxay wadaan arrintii ka dhacday baydhabo sayyeeshee xaaladaasi isha ayaan ku hay doonaa daawadayaal nala wadaag oo nala joog fadlan nala joog oo daawararka ugu dambeeya subscribe na saar calan sida media siina share garay adigoo aad u mahadsan